waxaan markaa ku heshiinay ajendayaal baanu samaysanay ajendayaalka markaa ilaa 4 area ah oo hadalka ku ah magaranaysa ay ka arooriyo ama laga duuliyo nimanka xagga nooyin waxa ay dad aad iyo aad iyaguna akhyaar oo habayeen aad u fiican bixayeen waxa ku jira wasiirka arrimaha dibadda gudaha ee hore Cabdisamed oo ninkii shirki horena la qayb qaatay oo rool fiican ka ciyaaray doorkaas ya kamida rag kale waxa weeye rag aad iyo aad u mudakara weeye ana waxaan ka filnaa waxa weeye inaan tusno inaan magaalada ay wax inoo faa'iido ah Soomaaliya way wax ka dheefta ma Soomaaliya iyo Soomaaliya hadaladeeda kii hore waa ogeedeen waxaan ka helay wax faa'iido ka helay kii London ka soo baxay February kii June iyo faa'iido ka helay kan waxaan doonayaa faa'iidooyinka inay saa isku bataan iyaguna si iyaguna ay noo tusaan inay Soomaaliland yani xumaan la damacsaneen niyad wanaag u hayaan Engineer Faisal ayaa sheegay inay jiraan qodobaha ilaa iyo imika isku mari waayeen mas'uuliyiinta Soomaaliya way jira qodoban isku diidnay laakiin de caro comment waxaan kuwa inaga turo isku raacnay marka wax dhibaato ah oo ilaa hadda hor taagan ma jirto maruu Faisal ka hadlayay qadiyada gooniisutaaga Somaliland ayaa waxa uu yiri ما قضية سوماليا قضية لقى هذا كرمها كون يستاق سوماليا أنه كما هذا كرنو وقوان أمضيت باوي وأنا مقالان ساي وحا كسوكي وحوي وردي وطنو ودمنا تشارك وحبا ودا قبصداني محاينو ودا قبصان كرنا فريموير كيبين وحكو ودا قبصان كرنا سيبين conference building يعني aan is-aaminaad iyo magaranaysaay yani aynu u samayn karnaa weeye laakiin qadiyada Soomaaliland cidna kama hadli karto waa qadiyad magaalada ummadda u taala waxa ilaa iyo subaxnimadii hore ee saaka socday shirkii labada guddi ee Somaliland iyo Soomaaliya waxa kale oo xusud mudan in aanay shirkan ku wehelin mas'uuliyiin ka socota wadankan Turkiga waxa la filayaa in galinka dambe ay labada guddi soo saaraan wada hadallo ay isku raacsan yihiin iyadoo haddii Ilaahay raali ka noqdana loo gudbi doono magaalada Ankara halkaas oo ay si toos ah ugu kulmi doonaan madaxweynayaasha Somaliland iyo Soomaaliya Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil Hon Cable TV Istanbul